diyaaradaha cawaandiga ah ee uu Mareykanku sameeyo waxaa ka mid ah F-16 oo lagu naanayso gorgorka dagaalyahanka ah. waa diyaarad jiilka afaraad ee diyaaradaha dagaalka General soo saarto, waxaana loo diyaariyay inay noqoto diyaarad fudud oo miisaansan, awoodna u leh inay u adkaysato dhammaan duruufaha cimilada ee kala duwan. inkasta oo ay hawada ku jirtay 40 sano ee u dambeeyay, haddana waxa ay ka mid tahay diyaaradaha loogu jecel yahay ee uu Mareykanku ganacsi badan ka sameeyay sanadihii u dambeeyay. sicirka xabadda kaliya lagu iibiyana waa inta u dhaxaysa 15 milyan ilaa 19 milyan oo dollar, taas oo ku xiran hadba modelkeeda oo u badan sanadkii 1998. diyaaradan waxa ay ku shaqaysaa barnaamij kombiyuutar oo aad u horumarsan. waxaana lagu jecel yahay awoodeeda dagaal iyo saacadaha ay hawada ku jiri karto oo haybad badan u sameysay, taas oo kaliftay in diyaaradan iibsigeedu ay dhaqaale badan ku bixiyaan dalalka adduunka, gaar ahaan kuwa qaaradda Asia iyo waqooyiga Afrika oo u badan Carabta. bandhigyada military ee dalalkani sameeyaan ayaa lagu arkaa diyaaradahan oo si xaraga leh raxan damaashaadka ugu qayb galaya, iyo madaxda dalalkan oo si faan leh salaan sharaf ugu qaadanaya fagaarayaasha military. laakiin ceebta mar dambe soo baxday ee ay madaxdani qarsanayeen ayaa ah in diyaaradahan uu Mareykanku dalalkan lacagta qaaliga ah ka siiyay sida ay rabaan uma isticmaali karaan. farayaasha iyo tirooyinka afgarashada ay diyaaradani ku shaqeyso waxa gacanta ku haya gaashaandhigga Mareykanka. dalka laga iibiyana looma sheego tirooyinka afgarashada, kaliya waxa ay sameyn karaan inay kiciyaan laakiin dagaal kuma qaadi karaan. taas oo micnaheedu yahay sida uu ra'iisul wasaaraha Malaysia qiray in dalalkana ay bandhigyada oo kaliya isku qurxiyaan diyaaradahan, laakiin marka ay dagaal noqoto ay ku qasban yihiin weerar kasta oo ay ku galayaan inay fasax uga qaataan Mareykanka. haddii uu ogolaado kaliya ayay isticmaali karaan diyaaradda. ma jirto dawlad weerar ku gali karta diyaaradan ama xitaa isku difaaci karta haddii aanu Mareykanka ogolaan, waana sababta keentay in baahida dagaal ee kadiska ah aan waxba ka tari karin dalalka Mareykanka xulafada la ahna aan lagu weerari karin. dalal kooban oo Yurub iyo Israa'iil ayaa cidda kaliya oo Mareykanku diyaaradahan iyo furayaashooda isu raaciyay awoodna u leh inay iskooda u isticmaali karaan. waxa kale oo ka mid ah dhammaan hubka barnaamijka kombiyuutarka ka shaqaysiiyo ee uu Mareykanku dalalkan ka iibiyo, kaas oo furo la'aan lagu wareejiyo iibsadaha marka laga reebo dalalkan aynu xusnay. dalal kooban oo dhibtaan ka badqaba waxa ugu horeeya dalka Turkiga oo isagu ku guuleystay inuu iskii u horumariyo awoodiisa saameynta qalabka militariga oo ay diyaaradaha dagaalka ay ka mid yihiin. sanadkii 1984 Mareykanka uu ka helay ruqsadda lagu ogolaanayo inuu soo saaro nooc gaar ah oo ka mid ah diyaaradaha F-16 ee Mareykanka, iyada oo tijaabooyinkii ay diyaaradani gashay gaar ahaan xilligii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Kosovo la ogaaday in ay leedahay awood ay hawada ku jiri karto saacado ka badan inta ay ku jirto diyaaradaha nooceeda Mareykanka lagu sameeyo. inkasta oo Mareykanka qudhiisaba dib cusboonaysiin iyo siitayaanba ku sameeyo diyaaradahan, ruqsadda uu Turkiga diyaaradahan u helay waxa ay suurtagelisay in ay ciidamadiisu isticmaalaan diyaaradahan oo isagu barnaamijkeeda gacanta ku haysto. wuxuuna hadda qorsheenayaa in sanadka 2023 uu shaqada ka saari doono dhammaan diyaaradaha F-16 oo uu ku bedeli doono kuwa uu isagu leeyahay samayskooda oo dhan.